بسم الله الرحمن الرحيم annagoo ay xaafadan ku dhaqan maxamed mooge waxaanu ka cabanaynaa warshadan kala sharka iyo daamirka isku qasta naguna haysa dhibaato aad iyo aad laxaad balaadhan u leh dhibaatooyinka nagu haysa warshadaas wax la soo koobi kara ma aha si kasta oo nuga ashkatoonay haday saldhigtay haday wasaaratay haday maxakamatay haday madaarkatay wax alaala wax naloo qabtayna ma jiro waxaan oran karnaa dawladda Soomaaliland lagu sheegaya horta ma dadka masafka iyo warshadaha leh wax haystabay dawladdu tay mise dadka danyarta iyo dadka masafka laba dawlad bay u tay dadka ay kitaabka u martay inay iskuunaan iyo cadaalad ku maamulaysaa ma dadka masafka laba mise waa dadka danyarta iyo dadka masafka laba isku jiraan warshadani dhibaatada ay ku haysa xaafadani waa xaafad aad iyo aad u ballaaran warshada marka la istaaro wax alaala waxa caruur ah joogta iyo ciroole dadka naqaska ku dhaga waxa jira caruur iyagoon 7 bixin laga helay tiimbe waxa jirta caruur iyagoon 40 bixin laga helay tiimbe iyo qaaxo dhibaatooyinka ay nagu hayso wax la soo koobi karay maaha ilaahay mooyee cid aan uga cabanayna ma jirto waayo wax allaala waxa maamulka sida loo kala sareeyo ilaa wasiirka warshadaha ilaa maxkamadaha ilaa arrimaha gudaha ilaa saldhigyada meel walba waanu tagnaa mar allaala markii cid waxba noo qaban weydo waxaan isku daynaa in mudaharad salmi aan kaga hor tagno fikirkay ka dhiibano dhaahno hadna laga raro warshadan markaana waxaana lagala hor yimid qori caaradii in lagaga waabiyo inay halka timaado goobta timaado oo nala eegto oo dadka eegto oo xaafada eegto waxaanu ka codsanaynaa madaxweynaha inuu isaguna wax ka qabto oo inuu yimaado oo xaafada eego dhibaatada isagu uu ka hadlaa waanu wax ka qabtaa Muuse Biixi Cabdi waxaanu ka codsanaynaa warshada dhibaatay nagu haysa dadnahay maxamed mooge dhibaatay nagu haysa inuu yimaado wax naga qabto degdeg nooga qabto ayaan u baahanahay haddii naloo iman waayo wax nalooga qabo wayda anaga gacan baanu leenahay waan iska qabanayna waxa weeyaan imankii haatana waxaanu maanta u taaganahay caawa in naloo soo jawaabo degdeg naloogu soo jawaabo ayaanu doonaynaa waa digniinta u dambaysa waa saddexdii shahaado ma garatay hanaloo yimaado waanu is aragnay warshadaada ka adkow baan ku nidhi annaguna dadka iyaga waan ku adkaanaynaa warshadiisii kama adkaanin Cumaani dadkiina imaka way isu soo baxeen oo leestemkii ugu dambeeyay taagantay maalin walbana ka hor taagmaan mayno maati iyo caruur yaryar oo wada sakaraada ciyaalkii waa kuwaas oo wada sakaraad waxa weeyaan duri kama baxo typhoid kama baxo hurdo ma seexdaan naqasku ku dhagaa ma garatay marka waxa weeye qof gurigiisii boor ku meeraysanayo ma seexanaya waa maya dawladii kulmiyo horona anigu ni kulmiyaan dawladii kulmiyo horona way dhaga fududay laakiin tani waa mid dhaga adag oo waxba maqlaynin waxa weeye si degdeg dadkan maatida ah ee caafimaadkoodii danyarta waxa iyo warshadan nin macaash doonaya iyo nin caafimaad doonayana meel ma wada gali karaan ummadan oo caafimaad doonaysa iyo nin habeenkii doonaya 100 milyan inuu macaasho meel ma wada gali karayaan marka waxa weeyaan xaafadan meelaha looga sameeyo hadii cid u laga danaynayo oo jiirka damqada dadka ugu yaalo cidii ay qusayso guddi mala xaafadu wasaaradda caafimaad ma loo kormeerta ay jiin male dawlad male waxa weeye waa dad maati oo meesha iska degan oo wada maxaysata oon cid ogeyn oo wadooyin male waa qabaan qowsooyinkaas ay wada degayn marka waxa weeye dadkan maatida ah ay u soo gaadho oo dhas iyo waxaanu ka cabanaa haddaan xaafada xaafada maxamed mooge kala sharka oo dhas iyo qiiq iyo daamir nagu soo burburiya oo caafimaad darro aad iyo aad u weyn nagu haya dhammaantay waxaana in jiifta iyo in beeshinka taalla iyo in bukaan socda waxa jira qaar naga mid ah oo isbitaalada Hargeysa kuwa Soomaaliland iyo kuwa dalalka jaarka waxba ka qaban waayeen oo dalalka caalamka loo qaaday oo sun laga helay jirkoodii waxa jira wallahi inaan beesheegin reerka halka ka guura waxaray lahaayeen waxari dhammaan way ka madheen marka waxari ka madheen ay naftoodii badbaadsadeen way ka guureen wax nolol halkaas ay naga taagantay waxa waxari madhi anaga maxaan ku nool carruurteed maxay ku nooshay waxa jira carruur 8 bilood jira oo isbitaalka yaala oo waxaan ku calaashooda dheecaan ka buuxsamay
oo calooshooda dheecaan ka buuxsamay sidaa darteed waxaan ka codsanaa cid kasta oo naga mas-uula oo madaxweynaha muuse biixi cabdi ka mid hormuud ka yahay in si degdega waxaan ku wax nalooga qabto bahalkaas haddii nalaga qaban waayo xaafad ballaadhan baanu nahay cudud baanu leenahay awood baanu leenahay taal baanu leenahay annagaa gacanteeda wax iskaga qabanayna nahay xaafadda maxamed mooge waxaanu ka cabanaynaa warshadan karagsharka ah ee isku rogta kimikada iyo daamurka warshadaasi dhib ballaadhan ayay ku haysaa xaafaddan maxamed mooge waxaanu soo diiwaangelinay 45 carruur ah oo 5 jirku u weyn yahay oo laga wada helay cudurka TB-da waxaanu soo marinay cusbitaalada Obolos Garaad iyo Cabdiraxmaan oo ka shaqeeya dhakhaatiirta carruurta ah waxa ay noo sheegeen oo ay noo cadeeyeen carruurtaas dhas laga helay dhaskaasina ay TB-dana oo dhaskaasi keenay taasoo dhibaato weyn keentay oo ay noo sheegeen in ay keeni karto xanuunka kansalka oo ay si sahlan looga qaadi karo warshadaha caynkaas oo kala waxaanu ka codsanaynaa anagoo maray processkii dawladda oo dhan hadday arrimo gudaha tahay hadday wasaaradda caafimaad tahay iyo hadday ay dawladda hoose tahay intaba waanu maray waxba lagama qabanin anigu garan maayo meesha looga dacwoonayo maxamed baan uga dacwoonaa muuse biixiyow madaxweyne waxa tay madaxweynihii qaranka waxaanu ka codsanaynaa sida ugu dhaqsaha badan in aad wax uga qabato xaafadani waxa weeye waa xaafad aad u ballaadhan waa xaafadii halganka ee dalkan xoreysay madaxweyne waxa tahay madaxweynihii qaranka waxaan ka codsanayaa sida ugu dhaqsaha badan inaad wax uga qabato oo aan maanta laga bilaabo dib loo istaarin warshada wasalaam isku riiqda daamurka iyo dhagaxa iyo sunaha kala ee chemicalka ah ayaanu ka cabanana inta naga soo martay xanuun dadka waaweyn ilaa carruur ilaa dadka waaweyn naga soo martay xanuun qaar ku geeriyoodeenba way badantay 2009 iyo warshadan la aasaasay rasharka ilaa intii hore berigii hore lama aqoon warshadan oo wadankeena kuma badnayn adigu ka bacdi dhowr sanadood ka bacdi intay taagneed la 3 sanadood waa la ogaaday waxay yihiin dabeedna markay halkaa marayso waxay noqotay inay khasaaro weyn oo naf le inay keentay waxaanu leenahay tan dadweynaha maxamed mooge aanu ka cabanayna warshada karasharka in si degdeg dawladdu nooga rarto oo meeshii ku munaasaba gasiiradaha la geeyaa baashan oo kale aan cid ku noolayn meeshii munaasaba la geeyo 9 sanadood bay imka lagu baxaysay oo dhibaato sinaysay waxaan dawladda sharafta la ka codsanaynaa oo madaxweynaha muuse biixi uu uga horeeyo inuu baashan looga tariyo oo wasaaradda caafimaad ku xigto in looga tariyo oo xaafadda laga qaado dhibaatan waagi bariba waa noo dhaqtar waagi bariba waa noo farmasi waagi bariba xanuun bay baashaas nagu hayso in laga qaado iyaan doonina walaalo waxaanu ka hadlanaa warshadan Cabdiraxmaan Cumaani ee taarka airport-ka ku dhex taala iyadoo dadweynahan reer maxamed mooge dhibaato weyn ku haysa dhammaan hargeysana dhibaatada way wada qabtaa laakiin anagu waan uga dhownay sidaan u dareenay oo 6 sano hore oo jaar la ahayn ma aanan dareensanayn ee waxaan baan u haysanay horumarkii wadanka u soo kordhay laakiin 3 sano dambe waanu dareensanay waxaana na dareensiiyay xanuunada badan ee xaafadda maxamed mooge ku dhacay in hargeysada kale ku dhicin ee dhakhaatiirta ayaa na dareensiiyay oo ilmo 3 bilood jiray oo 3 sawir la mariyo dhakhtarka TB-da la geeyay markii laga helay wuxuu ilmaha yari madabadu ku dhashay oo dhaskii Afrika garan waayay deemaya kuma dhalinay wuxuu ku dhashay hargeysa xaafadda maxamed mooge ku dhashay hadaa waa maxay macquul ma abu nugu waxanu ma hooyadiiba hadaa jaad layo koray wada ku soo jeedo boor way ku iibsay buuri oo dhaskii wadada galay boor ka kacay waarmee guriga wala galama soo bixin ma kala sharbay ma warshada noocaas ay ku dhaw taas hadda way leeyahay hadaa maxaa wax la idinka qaban waayay nalaga qaban maayo wuxuu leeyahay hadda way idinku iskaga qaxa wax 3 sano wixii 4 sano ka yari kuma noolaan karaayo oo sanbabkoodu ma qaadi karaya buu taladu dhakhtarka weynina siiyay qoladii anigu u tagtay baan kamid ah dhakhtarka weynina talada soo siiyay wuxuu yiri 4 sano wixii ka yari ma qaadi karaya sanbabkoodu dhaska noocana wuxuu qofka weyna hadduu dhas jiido uu iska tufaa laakiin ilmaha yar sidoo hiq u leeyahay sanbabkiisa xidhaya wixii afka ka gala dhasina ilmaha yar wuxuu uga soo noqon karaa kaliya hadduu isagoo hunqaaca ma garaday marka warshadaas oo dhibaato weyn ku haysa 3 sanana aanu ka
ashkatoonanay ayaa aanu halkan imika ka cadaynaynaa dhibaatadeedii waa yoomkii ugu dambeeyey ee ashkatada yoomkii ugu dambeeyey weeyaan imika labadan bilood ee ugu dambeeyey baan laba goor hore saasoo kale isugu nimid ilaa janannada halkaa aan ayna imika taaganay way noogu wada yimaadeen janannada ciidan taliya ku-xigeenka ciidanka bilayska taliya jananka bilayska bartaa way noogu wada yimaadeen ilaa wasiirka dawladda iyo hawadu way noogu wada yimaadeen waa la idinka talinaya raalli hada bay nagu yiraahdeen ilaa imaka haddana waxba lagama talin weliba waxaa naloogu daray si aad moodo in aad naloo sii dilayo cadaawada oo 16 saacadood istaadnaata awal waxaan ka hadlaynay 6 saacadood oo 10 saacadood siyaada naloogu daro ma garatay taa haddii degdeg wax looga qaban waayo waxaa iman doonta muxuu yidhi wasal masar wal nafar inaan qura oo isku biimeeya oo ina moogaha kala badbaado oo masar wal nafar ka dhacdo maatadii waxaan ku yidhi qiiqii oo ku soo shidayay sun laga wada helay yararkiisu dhas laga wada helay dhas laga wada dhaqaatiirtayna yidhaaheen meesha iskaga guura marka haddii dawladda sharafta waxaan ka codsanaa hadday tahay wasiirka arrimaha gudaha iyo caafimaadka iyo madaxweynaha Soomaaliya Muuse Biixi Cabdi Xirdiid inuu laga soo gaadho sida shar inuu laga soo gaadhaan bismillaah oo cabanayna maanta waxaanu ka cabanaynaa warshada cumaanu halka noo soo noo soo dhigay hadduu noo soo dhigan anaka waxyeelo mooye wax tarnooma laha waxa weeye ubadka yaga yaryaraa dhakhtar waxaan ahayni waxaan ku adduunka yagi ma qabo dayarna waanu nahay ma awoodno waxa weeye hadduu isagu danaysanayo annaga dad nooma soo sido waxaan leenahay madaxweynaha hore waanu kugu soo cabannay horena waxay ahayd wasaaradda caafimaadka iyo meel walba waanu maray askartu way noo hanjabeen waxna looga qabtay ma jirto maxay ahayd adduunna ma haysano dayar baanu nahay qorrafkaasaanu ku jirnaa nooma yimaado wadooyinkayaga ma eego caafimaadkayaga ma eego baahidayada ma eego haddeen horena maxay ahayd noomuu soo danayn maantana nama danaynayo muuse biixi waxaan leenahay hore waan kuugu cabannay maanta laakiin adee kuuma cabanayno xoog baan isticmaalaynaa haddaad caawa noo soo jawaabi weydid waxa weeyaan anigaygaa kula hadlaya 2 jeer baan dhakhtar tagay waa la iga soo helay sunta waa la iga soo helay qaar dhintay ayaana lagu yidhi maxay ahayd kalagsharka waxaan hayni may dilin maxay ahayd ma dul qaadanayno horena waan u dul qaadanay waayo dawladda dhawraynay maxay ahayd ganacsatada waxaan moodaynay in dalka iyo dadka ay wuxuu soo sido waxba anaka nooma soo sido ninka wuxuu soo sidana waxba nagama gelin waxa weeyaan anaka cudur bay noo sido caafimaad nooma sido arsaaqada nooma sido ninka ganacsanayna lacagtiisa waxba naga siin maayo dayar baanu noo biyo ma helo baad ma helo caafimaad ma helo mar habno haddii laga rari waayo oo dib loo shido haystiro ninka ganacsada ee mulkiilaahi taa waxaan ku dhaaf intaasan ku dhaafay waxa weeyaan maxay ahayd shacabkeena waxaan leeyahay anigu shacabkan la hadlay reer Maxamed Mooge waxa weeyaan diyaar garooba haddii caawa laga bilaabo la inoo shido diyaar garooba waan istifaacayna inaga xoog bayna haynaa xoogaynu wax ku qabsanaynaa adduun ma haysano dawladuna waxba inoo qaban mayso xoog baan wax ku qabsanaynaa diyaar garooba